Bismillahirrahmanirrahim. My name is Edna Adan Ismail. magacaygu waa Adna Aadan Ismaaciil And I'm sending waxaan baaqaygan bini'aantinimo u dirayaa beesha caalamka international community. waxaan baaqan u dirayaa intii karaankayga ah anigoo wakiilka ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland As a special envoy of the president of Somaliland. intii karaankayga ah anigoo ah samafale caafimaad oo caalami My ah capacity as a humanitarian. isla markaana aasaasiyay hay'adda bisha cas ee Somaliland General of the Somali Red Crescent Association. intii karaankayga ah anigoo ah diblomaasi howlgaba a retired United Nations diplomat. intii karaankayga ah aniga oo ah samafale caafimaad oo muddo 32 sano ah u shaqeynayay bahda caafimaadka caalamiga ah waxaan fariinta dacwadaydan maanta wakiil kaga ahay kumanaanka qof ee birimagaydada ahaa ee lagu xasuuqay deegaamadoodii iyo guryahoodii ee deegaanka Dacawaley iyo Abukar Axmed iyo deegaan hoosaadada kale ee looga gale deegaankaasi waa dhul ka mid ah deegaanka Soomaalida Itoobiya. That district is in the Somali inhabited regions of Ethiopia. gaar ahaan soo xuduudka ay wadaagaan wadamada Itoobiya iyo Somaliland. The Republic of Somaliland. Villages have been shelled dadka deegaanka waxaa lala dhacay oo lagu laayay rasaas aan loo meeldayn iyo bambaanooyin kuwaas oo ay fulayeen kooxo maleeshiyaad ka tirsan ciidamada militariga deegaanka Soomaalida Itoobiya guryahoodii ayaa dab lagu qabtay dumarkii carruurtiina waxaa loo laayay si aan kala socon lahayn kumanaan ayaa u yaacay duurka iyo kaymaha intii kale waxaa loo soo qaaday oo si halaaleelaha ay ku soo gaadheen xuduudda Somaliland gaar ahaan goobaha caafimaad ee deegaanka Balligubadle iyo goobaha kale caafimaad ee hoos yimaada oo gargaar bini'aantinimo caafimaad loogu fidiyay qaar badan ayaa magaalyo u doontay oo qaxiyo qaxoonti wali ku ah ayda iyo dhulka duurka qaar kale ayaa ku go'doonsan boholaha kuwaas oo wariya wacaaltoona laga hayn nolol iyo geeri iyo inay cuneen xayawaanka duurjoogtahay Somaliland waxa ay diiwaan gelisay 151 dhacdo oo waxyeello iyo hagaardaamooyin muuqda oo loogu geystay dadka deegaamadaasi waxaanu diiwaan gelinay 59 qof oo dhimasho ah laakiin kuwa kale ayaan wali na soo gaadhin oo aan war laga hayn meel ay jaan iyo cirib dhigeen waxaanu ku wargelinaynaa beesha caalamka in kumanaanka qof ee soo barakacay ay u baahan yihiin gargaar bini'aadantinimo oo isugu jira caawimo guryo daryeel ilaalin iyo in lagu celiyo deegaankii dhaqan ee asalka u lahaayeen waxaa codsigeygani ku wajahan yahay hay'adda UNHCR waxaa codsigeygani ku wajahan yahay hay'adda Lanqeyrta Cas waxaa codsigeygani ku wajahan yahay hay'adda ururka caafimaadka adduunka tani waa masiibo u baahan jawaab caalami ah Somaliland ma qaadi karto masiibada baaxadda weyn ee ka dhalatay xasuuqan lagula kacay dadkaasi birimagaydada waxaana uga tegayaa damiirkiinu inuu ka jawaab bixiyo masiibadani